gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan oo hadda warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa faahfaahin ka bixiyay kulan saaka dhex maray mas'uuliyiinta ugu sarreysa xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda waxaanu gudoomiyuhu shacabweynaha Soomaaliland ugu baaqay inay diyaar garoobaan isla markaasina u diyaar garoobaan mudaharaad salmi ah kaasi oo ay ku muujinayaan dareenkooda waxaanu sidoo kale gudoomiyuhu sheegay in mudaharaadka maalintii loo asteeyo uu dhici doonto oo wax laga bedelay aanay jirin dhammaan taageerayaasha xisbiga iyo shacabka reer Soomaaliland ee samaha jecel ee Soomaaliland jecel waxaan ugu baaqaynaa inay u diyaar garoobaan mudaharaadkii silmiga ahaa waa mudaharaad dastuuriya waa mudaharaad waxa weeye la ilaalinayo sharciga la ilaalinayo nabadgelyada la ilaalinayo mar walbana sidii maalintii hore ay u ilaalinayeen taageerayaashu waxaanu leenahay mar walba nabadgelyada ilaaliya xoojiya cid aragtaan inay qulqulad ku wada nabadgelyadana kala shaqeeya ciidamada ammaanka oo ka ilaaliya wax kasta oo dhaawici kara Soomaaliland waxa marka labaad aan u sheegayaa taageerayaashada ku wargelinayna iyo dadka mudaharaadka doonaya Soomaaliland dhamaantood ee doonayna darankooda muujiyaan inaan waxba laga bedelin maalinta khamiista la soo baxayo ay soo diyaar garoobaan isku diyaariyaan xafiisyada iyo isku diyaariyaan yimaadaan santarada aan ugu baaqnay haddii la ka dhigo uguna baaqi doono soo gudbin doono waxa inta dheer gudoomiye Xamarji iyo gudoomiye Cabdalle iyo xogayaha Axmed Shukri Dr. Axmed Shukri waxay saaka ka qayb galeen shir aan u diray oo ay wasaaradda dakhliga iyo xukuumadda kala qayb galeen iyaga iyo gudoomiyaha xisbiga Ucud oo hogaaminayay waftiga oo laga wada hadlayay mudaharaadka dastuuriga ee sharcigu siiyay muwaadiniinta inay ammaankooda sugaan dadka mudaharaadaya taana waa la isla qaatay sida ay sheegeen waftigii ka qayb galay ama xubnihii ka qayb galay waa la isla qaatay way la qaateen xukuumaddu in mudaharaadka silmiga ay dhaco in mudaharaadka silmiga ay waxa weeye ammaankooda la sugo dadka waxa weeye mudaharaadayaasha soo banaanbaxaya banaanbaxa waxa kaliya oo ay bari ugu noqon doonaan nabadgelyada siday u sugayaan taana mar walba anagu nabadgelyada waxaanu ka taaganahay ilaalinteeda waa muqaddas waa ilaalinaynaa annaga cid walba ka jecel nabadgelyada dadka dhufayska nabadgelyada ka dhiganaya la nabadgelyada wax la dhaawacaya nabadgelyada adigu gacanta kuma haysid dadka reer Soomaaliland baa dhistay nabadgelyada dadka reer Soomaaliland bay qaali ku tahay annaga qayb ka annaga ilaalinayna xisbiga wadani iyo xisbiyada mucaaradka waa kuwa nabadgelyada mar walba ku baaqaya waxa nabadgelyada xumeynaya ninka doorashada diida waxa nabadgelyada xumeynaya ninka muwaadiniinta aan waxba geysan qabqabta ee laaya ee dhiba ee dhagara waxa nabadgelyada xumeynaya ninka cadaaladda diida ee hanaanka dawladnimo xumeeya waxaanu leenahay hanaanka dawladnimo la ilaaliyo waxaan cambaaraynayna shanta xubnood ee ahaa hawlwadeenadii iyo madaxdii xisbiga ee shalayta la qabtay wax isu kaay qaban waayo weeyii dawladdoole aan ka wada hadal mudaharaadkii iyo haddana ay xidho xubnihii ka shaqeynayay way soo bixi doontaa warkeedu waxaanu soo ugu baaqaynaa inay sii daayaan xorriyadoodu soo celiyaan oo xadgudubka ka daayaan muwaadiniinta ay ku xadgudbayaan xorriyadooda xorriyadu waa xuquuqda marka laga yimaado xuquuqda noolaanshaha ee qofku xaq u leeyahay ee dastuurku xusay ee diintu xustay waa xorriyada labaad ee qofku inuu xorriyad yani waa xuquuqda labaad baan leeyahay xorriyadu ee qofku helo xataa xorriyada caqiidada iyo iimaanka waxa weeye hadaan xorriyad lahayn qofku ma heli karo marka xorriyadu waa xuquuqda labaad ee tan nolosha dabadeed marka waxaan leeyahay dadka xorriyadooda yaan lagu ciyaarin yaan lagu xadgudbin dastuurka u damaanad qaaday inay xorriyadooda helaan inay waxa weeyaan banaan baxaan inay shucuurkooda muujiyaan in xuquuqdooda dastuuriga lagu xadgudbaana waxaanu leenahay waa sharci darro mar walba waa cambaaraynayna waa ka soo horjeednaa waxaanu mahadnaqayaa oo mahadnaq ballaaran soo jeedinaya Suldaan Xasan Suldaan Cabdiraxmaan iyo sulaadiintii hogaaminayay beesha Habarawal oo runtii muujisay door facaal ah iyo dareen waxa weeye muwaadinimo oo aad iyo aad u qurux badan oo aan leeyahay waxay runtii
bulshada Somaliland ka baabi'iyeen hanaankii qabyaaladda inaanay ku raacsanayn madaxweynaha inaanay ku barbar taagnayn waxay muujiyeen guurtinimadii laynagu yaqaanay ee ahayd qofka khaldan in la qabto aad ugu mahadsantihiin boqolkiiba boqol baa ku mahadsantihiin cid walbana waxaanu leenahay ha laga dheeraado qabyaaladda dawladnimadu qabyaaladnimo maaha dawladnimadu qabyaalad maaha ha laga dheeraado ha la isku duubnaado dareen bulshadu wada jira hadday mudaharaadayaanna ha ku wada mudaharaadaan hadday qarannimada ilaalinayaan ha ku wada ilaaliyaan ومحمد حذيفي تلفزيون كCBA هرقيساء